kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal. barnaamijka waxaan ku eegaynaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaal ciidanka Itoobiya iyo kuwa Suudaan ku dhaxmaray xadka labada dawladood ay wadaagaan. sidoo kale Itoobiya oo ka hadashay sheegashada Suudaan ee mid ka mid ah gobolada dalka Itoobiya. waxaynu marka hore ku horeynaynaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka labada dhinac. sida wararku ay nagu soo gaarayaan ciidanka dalka Suudaan ayaa daraad ilaa shalay qabsaday deegaano ballaaran oo galbeedka kaga beegan magaalada Gondar ee deegaanka Axmaarada. militariga Suudaan iyo maleeshiyaad taageeraya ayaa sidoo kale waxa ay qabsadeen deegaano dhaca bariga deegaanka Alfashaqada weyn ee galbeedka kaga beegan magaalada Gondar ee ismaamulka Axmaarada. mas'uuliyiin ka tirsan deegaanka Axmaarada oo ka hadlay dagaalkan ayaa sheegay in ay Suudaan wado duulimaad cad oo badheer ah. daraad ayay ahayd markii ciidamo Itoobiyaan ah 10 kiiloomitir gudaha u galeen xuduudda Suudaan dhinaca Alfashaqada yar halkaasi oo wadooyin waaweyn ay xidheen. militariga Suudaan ayaa u muuqda inuu horumar ballaaran ka sameeyay dagaalada ay kula jiraan militariga Itoobiya iyo maleeshiyaadka Axmaarada ee ku sugan dhinaca Alfashaqada weyn iyo waliba Alfashaqada yar. xaaladda labada dawladood ayaa sii xumaanaysa marba mar ay ka sii dambaysa. dagaalka iyo khilaafka ayaa bilowday kadib markii Itoobiya dhanka waqooyiga dagaal uu ka bilowday. Itoobiya ayaa ciidamada ku sugan xadka Suudaan ay la wadaagto dalkaasi waxa ay u dirtay dhinaca dagaalka dhanka waqooyiga. Suudaan oo ka faa'iideysanaysa arrintaasi ayaa waxa ay si xoog ku qabsatay dhulkii Itoobiya ay ka haysatay. dagaalka Suudaan iyo Itoobiya iyo khilaafkooda ayaa laba waji leh. mid waa khilaafka iyo waliba gacanka hadalka ka taagan xadka labada dawladood iyo waliba deegaanada ay ku muransan yihiin. midna waa biyo-xidheenka Itoobiya ay ka dhisanayso gudaha dalkaasi kaasi oo khilaaf ka dhexdhiyay saddex dawladood ee kala ah Itoobiya, Suudaan iyo waliba dalka Masar. wararkii ugu dambeeyay haddii aan eegno ee dalkaasi Itoobiya iyo Suudaan khilaafka u dhaxeeya, Itoobiya ayaa gaashaanka ku dhufatay sheegashada Suudaan ay ku sheegatay deegaanka Benishangul Gumus oo laga dhisayo biyo-xidheenka weyn ee Itoobiya. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Itoobiya Dina Mufti oo shir jira ay qabtay wuxuu sheegay dawladda Suudaan inay sheegato gobolka Benishangul Gumus inuu yahay wax laga xishoodo oo sharcigana baalmarsan. Dina waxa uu sheegay mowqifka Suudaan inuu yahay mid ka hor imaanaya qarannimada dalka Itoobiya. maalmo ka hor bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan waxaa lagu sheegay Itoobiya haddii ay ku sii socoto heshiisyada in ay ka baxdo ay Suudaan soo jeedin karto lahaanshaha gobolka Benishangul Gumus ee dalka Itoobiya. Suudaan iyo Itoobiya bilooyinkii u dambeeyay waxay xiisad xoogan oo dagaalo sababay ku dhaxmarayeen deegaanka Alfashaqa oo ah dhul beereed ku yaala xadka labada dal. labada dal inkasta oo marar badan ay sheegeen inay doonayaan dagaal inay wada galaan, haddana ciidamada labada dal ayaa dagaal waxa uu ku dhaxmaray halka ay isku hayaan. dagaalka xadka u dhaxeeya labada dawladood ka sokow wadamada Suudaan, Masar iyo Itoobiya waxa u dhaxeeya khilaaf xoogan oo ka dhashay markii saddexdaasi dal ay heshiis ka gaari waayeen wadahadaladii ay ka yeesheen xal u helidda habka biyo-xidheenka loo buuxinayo. Dina Mufti afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya waxa oo kale oo war-saxaafadeedkiisa uu ku sheegay Suudaan oo haatan ah gudoomiyaha urur goboleedka IGAD in ay ku dhaqaaqday falal sharci darro ah. waxaana jecel lahay buu yiri in aan u sheegno inay arrintaasi wax lagu xumaado oo laga naxa tahay. Suudaan iyada oo dhul Itoobiya leedahay xoog ku qabsatay haddana in ay bayaano aan munaasab ahayn soo saarto Itoobiya si dhow ayay ugu kuurgalaysay. ciidamada Suudaan oo dhacya bariiqa ka wada dhulka Itoobiya ee ay qabsadeen in ay u dulqaadato Suudaan waxay u aragtay daciifnimo iyo cabsi. hase yeeshee Dina Mufti wuxuu sheegay khilaafka Itoobiya iyo Suudaan u dhaxeeya inuu salka ku hayo arrimaha xadka oo wax xiriir ah uusan la lahayn biyo-xidheenka weyn ee Itoobiya ay dhisayso. wadahadallada saddex geesoodka ah ee la xiriira biyo-xidheenka Itoobiya wali mowqifkeedii ayay taagan tahay. dawladda Itoobiya waxay markii horeysa sheegtay dagaalka gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya markii uu Itoobiya ka bilowday oo ay ciidamada Itoobiya oo deegaanada xadka Suudaan iyo Itoobiya ku sugnaa ay ka baxeen ay ciidamada Suudaan deegaanka Alfashaqa gabi ahaanba la wareegeen. xuduudda geeska Afrika ayaa ah kuwa aad loogu muransan yahay. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa sanadkii 1977 ku dagaalamay gobolka Ogaadeen. sanadkii 1998 waxay Eritrea kula dagaashay Itoobiya dhul yar oo lagu magacaabo Baadhame. ilaa 80,000 oo askari ayaa ku dhimatay dagaalkaasi oo horseeday cadaawad qaraar oo labada dal muddo dheer ka dhex taagneyd, gaar ahaan iyadoo Itoobiya ay diiday inay ciidankeeda ka saarto magaalada Baadhame xitaa markii ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay dhulkaasi u xukmisay Eritrea.
waxaa dib u qabsaday ciidanka Eritrea markii uu socday dagaalkii Tigreega bishii November ee sanadkii 2020 kadib dagaalkii 1998 Ethiopia iyo Sudan ayaa dib u bilaabay wada hadal dheer oo lagu xalinayo meesha saxda ah ee xadka dhererkiisu yahay 744 kilomitir oo u dhiganta 462 mayl ee u dhaxeeya meeshii ugu adkeyd ee la xalin waayay waxay noqotay fashaqa marka la eego heshiisyadii xilligii gumaysiga sanadihii 1902 iyo 1907 xadka caalamiga wuxuu gaarayaa ilaa bariga tani macnaheedu waa in dhulka ay leedahay Sudan balse Ethiopiaanka ayaa degay deegaanka iyagoo halkaasi beero ku yeeshay isla markaana canshuurta siinayay dawladda Ethiopia wada xaajoodida labada dawladood ayaa ku soo dhamaaday heshiis sanadkii 2008 Ethiopia ayaa garowsatay xadka sharciga balse Sudan ayaa u ogolaatay Ethiopiaanka inay halkaasi isaga sii noolaadaan iyaga oo aan wax dhibaato ah loo geysan wuxuu ahaa kiis cajiib ah oo muran dhanka xuduudka lagu xaliyay qaab aysan dhib ka soo gaarin dadka ku nool xadka muddo 10 sano ah ayay isdhex deganaayeen dadka labada dal ilaa hadda oo ay Ethiopia sheegatay gacan ku haynta deegaankaasi waqtigii Ethiopia ee heshiiskii 2008 waxa hogaaminayay sikaal sare oo ka tirsanaa kooxda TPLF oo lagu magacaabi jiray Abiy Tashaye kadib markii TPLF laga qaado xukunka Ethiopia sanadkii 2018 hogaamiyaasha qowmiyadaha Axmaarada ayaa cambaariyay heshiiskaasi waxayna ku sheegeen inuu ahaa gorgortan qarsoodi ah oo aan lagala tashan labada dhinacba fikrado kala duwan ayay ka aaminsan yihiin waxa sababay dagaalkii fashaqa waxa xigay ee dhacay muran kama taagno ciidamada Sudan ayaa dib u riixay Ethiopiaanka iyagoo ku qasbay dadkii meesha deganaa in ay isaga baxaan shir goboleed ay Djibouti ku yeesheen 20 December ee sanadkii hore ayuu ra'iisul wasaaraha dalka Sudan Abdullah Hamdok arinta ku soo qaaday dhigiisa Ethiopia Abiy Ahmed waxay isku raaceen inay wada xaajood galaan balse midkoodba wuxuu watay shuruud Ethiopia waxay Sudan ka doonaysaa inay magdhow siiso qowmiyadaha dagaalka uu saameeyay Sudan waxay doonaysaa in heshiiska lagu laabto iyadoo wufuudda ay wada hadlayaan waxa dhacay dagaal kale oo ay Sudan ku eedeysay ciidamada Ethiopia marka la eego muranada xadka dhinac walba wuxuu falanqeyn gaar ah ku sameeyay taariikhda sharciga iyo heshiisyadii qarni jirsaday ee gumaysiga balse waxa sidoo kale calaamad u ah laba arrin oo waaweyn mid walba waxa daaha ka rogay isbeddelka siyaasadeed ee Abiy Ahmed